horta annaka waxaan degannahay gobol la dhaho North Eastern Province oo markii la qadaro boqolkiiba 23% boqolkiiba 23 dhulkayna way qiyaastayna waxaan lagu qiyaasaa 3 milyan oo qof aan lagu qiyaasaa lacagtii aan qaadanay 12 la soo dhaafay sana aan qaadanana ilaa 700 oo bilyan way hadday ka badanin lacagta maanta waxa waaye eedeedana way badnaatay wax muuqto maanta hadda yani oo muuqto oo la dhihi karo waxan baa muuqtaa haddana way yaraatay ha yaraatay sababtii ay ku yaraatay wax qabadku u yaraade ayadana ma aragtay hadda arrin oo ma aragtay la cadeyn karo ma aha su'aasheedana nin la su'aala la garan la yahay maxaa haddii tacliinta ay ka soconin gobolkan oo gobolkan wuxuu leeyahay 3 constant uu leeyahay waxa way A ma jirto A minus na ma jirto resultige 3 constant ay jirta oo bartilmaameed ay jirin A minus ay ku yartahay ama A bay jirin iyo boqolkiiba 70 resultige ay taho E D plus E D minus iyo D plus ay taho saddexda constant hadii hayso macnaha waxaad jawaabteeda aad bixin kartaa waxa waayay meesha tacliintana way ka duntay dhaqan iyo dhaqaalana meesha way ka duntay tukaamii hadii yaraa waa la xirahayaa marka dhalinyaradii oo internet loo aftiimiyo xidiga ay ku da'an lahaayeen madaxda ay ku da'an lahaayeen akhyaarta ay ku da'an lahaayeen meeshii waxa way dad dhinta oo kale ma artay ay noqdeen lidaalika dhalinyaradii waxay ku qasabtay tahriib intay la imaado waxa way dhalinyarada magaalada had markaad fiiriso khaasatan aniga Gaarsan jooga wajeer ma joogi Mandheerana ma joogi laakiin khabarkoodan haya dhalinyaradii tahriib bay u kacday magaalada aad tagto maanta waxaad arkay dhalinyaro maba joogtabo intii joogtana waxa way waa dad sii socdo halkii arday oo ma artay dhalinyaro oo bixahayana intay meeshan rajo ka waayeen dhalinyaradu way isla socdaan wax bay isla cunaan iskuul bay iskala soo baxeen dadkii madaxda ilma adeerahooda ay qorayeen haddii ilma adeerahooda ay waayoonna waxay qorayeen dad kale oo meel kale ka imaadeen nifaasi way iibsanayeen and it is a fact maxaa haddii gobolkan ay tacliin ay ka duntay oo tacliin ay jirin haddii gobolkan dhaqan iyo dhaqaale uu ka dume haddii gobolkan ma aragtay employment opportunity ay jirin waxaan u malayni the whole of North Eastern warshad yar oo subaxdii 300 oo qof ay ku kala hado after all that money wax nyeri la siinin Kiambu la siinin Kisumu la siinna nala siyanaka gobol ahaan lacagta dadka waxay leeyihiin guriga dhadhaara lagu dhiste lacagta intay aade waxa loo qaadaa lagu leeyahay Turkiya loo qaadaa lagu leeyahay waxa loo leeyahay Dubai baa la geestaa loo leeyahay waxa loo leeyahay ma artay yani waxa lagu wataa buudiyaha gaarigooda lagu wataa horta waxaan waa ceeb madaxda ceeb bay ku tahay nimankan waa niman educated waa niman ma artay oo la bilay ninkii la bilay hadduu dhibka dad u geysan hayo adduunyo waan kula xisaabtamay la'an waxaan kula xisaabtamay la'anahay qabiil baa daba istaagtay ray baa daba istaagtay hatta masaa'il lagama hadli karo hatta markaad fiiriso dadka tabiye ma hasto people have no water at all marka dadkii waa la faqriyay haddii la faqriyay dhalinyaradii markaa waxay galeen tahriib maxay tahriib u galeen madaxdiya ku noqotay khaa'imin madaxdiya dhulmi injustice ma arta la imaade madaxdiya kaalinta laga reebay ka soo bixi waayeen marka maxaan samaynaynaa nimankiina madaxda ilaahay horta waa inala xisaabtami ilaahay laakiin heer waxaa la gaari doonaa dhalinyaradan dhagax ay qaadan doonaan heer waxaa la gaari doonaa dhalinyaradan wax ay gubi doonaan sababta idinkaan noqon doontiin because this is an autonomous regionkan waa very autonomous dhalinyarada waxaan u sheegi dhalinyaroy lacagta aad qaadi haysiin oo ka bixin haysiin horta way badan tahay waxaad ku socotiinna waa risk waxaad qof markuu inta ka baxo wuxuu u tahriibi Turkiga tagi Turkiga markuu tago niman baa receive garayni haddana wuxuu u kicay Spain buu Spain haddana waa laga receive garayni Mareykan ama Europe baa la geli waa very risky diinta islaamkana boos looguma hayo meeshaas walaa talquu biaydiikum ila tahluka it's not allowed for you to expose yourself to risk haddii lagu qabto ninkii aan waxba haysanin ama ninkii deen loo qaade waxaa lagu dhihi 2 milyan keen adigoo cabaadayso lagu cadaabayo ayaa soo bixi hooyada baad dhibi tolkiyaad dhibi annaka idiloo muslimiinta baadna dhibi dadkana waxaan noqonaynaa dad oo ma artay paria oo dad on useless ayaa noola arkay nin 700 bilyan la siiyey oo dhalinyaradii ay tahriibahayoon
nin 700 bilyan la siiyo 10 sano la soo dhaafay way oo ma aragtay tacliintiisa meelay ku suganta la garanaynin oo yaa in yaa out result of northeastern ninkii challenge garan rabana waan rabaa I could have my own problem lakin the reality of the matter waxa way northeastern ma hesho is a no go zone northeastern ma hesho a minus hadday heshana waa very limited maxaa you are talking of 23 24 25,000 students at ka hadlaysa in kastoon maqle ani ma artay ma aan xaqiijayn xaqiiqadeed ma hay laakiin school oo la dhaho calin juqur gabdhaha schoolkooda here you know they got some A's we are very thankful to them for the hard work here also Takaba there is very good results and maybe some other pockets or private schools laakiin school oo shan ama lix wakiil kama noqon karo resultiga northeastern idil wakiil kama noqon karo marka dhalinyaradii waan la hadli bedelkii aad bixi lahaydeen oo dhul aad garanaynin iyo wixii aad ku socoto aad garanaynin horta dhulkiina aamina waxaan fidin doonaa hadday inoo suurtowdo programs on carpentry and joinery nafteed waxaan keen rabaa nin aan 17 sano aan shaqaynayne oo ma art carpentry yani haddii aad barato 18 months way you will be earning a lot of money 100,000 shillings bishii waad keeni kartaa waxaa kaloo jira haddana dad baa waxay nooga imaan hayaan the neighboring districts shaqadii kulle ay ka noo qaban hayaan darad waxaan arkayaa meeja deeqow oo MBga oo leh warmiyo dhulka ka carinaaye shaqada la qabanay haddii ay noqoto si way haddii cunto karin ay noqoto I concur with him marka waxaan leenahay dhalinyaro ha cararina dhulkina ha naga engejinina you are the hope for the future dhulkiina imaada let us use the constitution of this country which allows peaceful demonstration jidadka aan buuxino haddii biyo aan wayno annagoo raay u soconin jidadka aan buuxino let's knock on the door of the governor let's go and knock on the door of the county commissioner the regional commissioner the office of the MP let's go and hold our leaders accountable ha cararina meeshan ay khayraad ay taala meeshan aan beer aan abuuran karnaa meeshan aan meeshii ma arti xaq aan u leenahay ha cararina riskna isku ma arti yani don't expose yourself to risk let us hold our MPs some of them we can even sign petitions waxaan petition dan sign garayno ayaan recall statement it is in the constitution aan samayn karnaa